gudaha kolkaad eegtid xaggan kililka waxa ka socda iyo waxa dibaddaba waxaad moodaa iska daa waxay ku odhanayaan waxaan la dagaalamaynaa gumaystayaashii waxaan la dagaalamaynaa Ethiopian ku xoreynayna war dadka kula nool horta ma ka qayb gelisa weyn ma did you acknowledge that oo ma la fadhiisatay ta kale maad aragtay adigiyo dadkaagiiba kasbanayn iminka eeg waa sida ogada National Liberation Front nin kaliyaatoo maanta dagaalamaya meesha kuma leh runta haddaa laga hadlo dibadda iska joogaan 15 ugu sarreeya meesha maamulaya 14 ninka maade maxamed wuxuu ku dhashay you can check it verify francisco waxay xidhan jireen waan formé anon nouveau qof cusub baan dhisaynaa buu kalena wuxuu sameeyay aan kuu soo koobay dhaqaalahan 7 bilyan oo dollar buu gashay kililka Soomaalida kama fiirsanayaan iyaga maxaa ugu jira Somaliland ma yaa qoray Somaliland inay xog ku noqoto Somaliland eeg 1964kii 1977kii intaasoo dhan boqolkiiba 90 is well written archiifyada ma garanaysa meel kastaad ka helaysa dhibaatada ugu weyn Somaliland ee ku dhac dagaalada sayna fahamsanayn kolka Djibouti-na way congratulation bay lahayn maad oo waxay lahayn nacamde waxaad way fiican tahay laakiin Somaliland-na waxa kale waa gooni goosato maad aragtay kolka waa waxyaabaha poor politics iyo poor mentality wala loo yahay واضح اسماعيلو inagoo kolley jawaabaha iyo su'aalaha soo koobayna si aynu barnaamijka qaybo badan oo kalena aynu uga sii qayb qaadano isagoo labadii toddobaad u dambeeyay aynu daawadayaasha ka raali gelinayno arrimo farsamo ugu baaqday barnaamijku dhinaca Ethiopia xisbiga PB waxa uu helay 438 ka mid ah 501 kursi kuraasi tani ma xoojinaysaa awoodda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxay sii kordhinaysaa habashada dhinaca mucaaradka kolkaad eegtid abshakuro kolkaad eegtid imika satri 501 yahayd electionkii doorashooyinkii dhacay wuxuu helay 400 ilaa 830 iyo xisbiga PP helay kolka imika durba waxay bilaabeen adu laba face baa jira imika qoladan la yiraahdo national dialogue ayaa waxay wada hirgelinaya imika qoladaasi 4 sanadood bay ka shaqeynayaan arrintaasi imka maalin dhaweyd shir jarayd bay qabteen ninka ugu sareeya waxa la yiraahdaa professor Masfin baa la yiraahdaa araya in maantadan waxa wareysanaysay afxabash baa lagu wareysanayay kolka wuxuu u qaybanayaa ilaa wuxuu u qaybanayaa 2,000 qof baa la keeni doonaa waxa loo qaybanayaa 500 waxay soo saareen oo kale ilaa 8 qodob nacam waxaan arrintan uga hadlay waxa weeyaan way isku xidhan yihiin maad aragtay natiijadii ka soo baxday doorashada iyo Ethiopia meesha ku socoto yaa isku xidhan kolkaas 8 qodob waxa ugu waaweyn ta ugu horeeya waxa weeyaan nation building sidii ma garanaysaa Ethiopia waxa weeyaan throughout the history of Ethiopia waxa dhibaatada ugu weyn ee Ethiopia hortaalay waxa iyagu de nimankan America ka yimaada xaggan Tigray iyo Amxaarada waxay yiraahdeen Ethiopia waxay jirtay 3,000 oo sanadood laakiin dadka kale ee South-ka sida xagga Soomaalida Oromada Gambeelaha iyagu waxay leeyihiin 100 iyo xogaa kama badna taasaana de saxa shalay tole hawdi reserve waxa lagu daray 1900 iyo 40 iyo 54 waa lagu daray xagan kale ugaadeen waxa lagu daray 1900 iyo 48 kolka adu 8 qodob ugu weyn nation building ma aragtay Ethiopia struggle-ka ugu weyn dhibaatada ugu weyn hortaalo waxa weeyaan dadka periphery-ga in ka hadli jirnay ku lahaa nin waxa jira John Markakis oo si fiican uga hadlay oo boog la yiraahdo Ethiopia the last two frontiers wuxuu leeyahay dadka dibadaha sida Gambeelaha Oromada in Soomaalida iyo qolooyinkaas oo dhan laga qayb geliyo powerka kolka qoladan eegmka abinow ku fahmay iyagu waxay rabeen ayuu u hor carray maantay uu leeyahay kow waxa sameynayna imka matalan dir dhabo kale iyo matalan waagi hore ee qoladan Malasi haysteen iyo Addis oo kale waxa laga dhigahay meel ma aragtay independent oo kala because waxa la ogyahay xaggan inay Soomaalidu ugu badan yihiin dirdhabe xaggan kalena Addis Ababa inay ugu badan yihiin Oromadu ogaan baa looga dhigay maanta laakiin imika labadii baa la soo hoos gelinaya xaggan Oromada adu laakiin tan wali lama xaqiijin tan dirdhabe waa la isku haystaa
تكلم جوين وحوين article 39 إلى أن حريستو عبد المجيد يو وقعميس كو قريت ما دركتي أو قولك كستي أو قوميدها إثيوبيا كمدا haddii isfahmi waayaan inay aayahooga ka taliyaan self determination up to secession ayaa la doonayaa ina meesha laga saaro waxaanoo dhanna waxa u dagaalamayay qoladan amxaarada tigreeguna waxay sameeyeen kolkay iyo magaranaysa dastuurka la qoray ogaan bay waxa ugu dhigeen laakiin iyagoon maamulayay waxba dadka kale waxba power kuma ogolayn kililada even dad iyaga ka mida iyagoo xil saareen kolka imika 8 qodob waxa ugu weyn xagga diinta laga hadlayaa waxa laga hadlayaa xagga dhaqaalaha waxa laga hadlayaa magaalooyinkan hoos imanaya aduu ilaa 8 qodob oo waaweyn weeyaan waxa tagoraysan ku waa nation building ta kale waxa weeyaan dawlad ahaanba state structure iyo form of government ma federal baa lagu deynayaa ma presidential baa loo bedeli doonaa taasaa talabaada ta saddexaad waxa weeyaan saan kolkii dhaweyd ku lahaa federal city-ga affairs sida matalan dirdhabo kale in addiisoo kale hayee hoos imanayaan maamulkooga xagga diinta laga hadlayaa Ethiopia waxa jira article qodob odhanaya dastuurka waxa ku qoran 13aad oo kala saaraya diinta iyo maad aragtay laakiin sidee bay noqon kartaa institution building rule of law iyo human rights ka iyo qodobka shanaad ka hadlaya sidii nacamde loo dhisi lahaa hay'adaha sidii nacamdu in xeer ahaan nacam waddanka loogu maamul lahaa talixaad waxaa laga hadlaya xagga dhaqaalaha iyo Ethiopia waxa jira labada ugu waaweyn waxa weeyaan waa dadka iyagu arbito adar iyo waxay yidhaahiin qolooyinkeennan dee pastoralka oo kale kolka iyagana sidee baa dhaqaalahooga loo eegi lahaa ta kale toddobaad waxa weeyaan corruptionka iyo good governance-ga nacam sidii dee dadkan dee lacagaha badan lunsada sidii iyo maamul wanaagga sidii loo dejin lahaa aduta ugu dambaysa waxaa laga hadlayaa peacekeeping iyo national reconciliation nacam dadkii ina la heshiisiyo waa kan Ethiopia Tigray dhexdeeda Amara region Oromo in xagga Kristiyaanka Oromada ee walaga dagaal baa ka socda adu guud ahaan kolka la isku soo xoori aniga waxa iga soo baxday maaragtay kow inuu abi ogaan maaragtay u sameynayo waxan consciously maaragtay uu doonayo kolkii hore amxaarada maamuli jirtay saan u jirnay kolkii labaadna waxa qoladana qabsatay Tigreega oo 27 sanadood maamushay imikana gacanta waxa u soo gashay Oromada sidee bay Oromaduna kolkii way khaldeen kuwan dadka Tigreegu waxyaabo badan oo dhaqaalana wanaag way sameeyeen laakiin haddana maamulkii gacanta iyaga awood oo dhan haystay qoladan imika xaggan Oromaduna waxay doonayaan iyaga dadkooga aad bay waa dad sideenoo kale una radical weeyaan kolka Ethiopia kolka waxa odhan Ethiopia kala tagtaba sida OFEC oo kale Oromo Liberation Front oo kale qoladan oo la dagaalamaysa adu kolka guud ahaan la eego maad aragtay waxaad moodaa in sawirka ka soo baxaya waqtigan imika Ethiopia in a nation state-kii maaragtay awoodda dowladeed ee state loo dhanay meesha ku ururayay ina su'aal weyn la saaray kolka abina wuxuu rabaa kow inuu magaranaysaa noqdo dee presidential oo kale uu galo waa kow talabaad waxaanay ka qaylinayeen amxaarkii qolooyinka kale Ethiopiaanku ee dee weligeedba Ethiopia iska maamulanayay inuu u tuso si maad aragtay lagu samaynayo amendment maad aragtay in dastuurka ayuu wadaa ta saddexaadna ugu weyn waxa weeyaan qolooyinkan kale xagga south-kana sida xaq u heli lahayd laakiin waxaan la yaabay maad aragtay qolooyin dadkeenna xagga Soomaalida oo even shir ku qabtay London oo kale oo qolooyin garanaysa oo lahaade waan ka soo horjeednaa abi kolka taasina waan geli doonaa waa tahay Ismaaciil dhinacani Eritrea iyo kulamo ayaa jiray iyaga laftigooga waxay ka dhigan tahay wadahadallada Getachew iyo Ridwan Xuseen ee ku saabsanaa Eritrea iyo wadahadallada waxay u arkeen maad aragtay sorry finish Ismaaciil waxa weeyaan kow waxa weeyaan way ogaayeen qolooyinkan maad aragtay Tigreega iyo amxaarada iyo kuwa nimanka Kristiyaanka ee 10% ee Oromadu weligoodba Ethiopia iyaga maamulayay 90% iyaga iska haysan jiray dadka meesha kolka imika tiibuu doonaya abine inuu ka yar bedelo maad aragtay kolka Getachew Reda iyo ninkan kale magaranaysa Ridwan Xuseen article bay ku qoreen Al Jazeera kolka qodobada ugu waaweyn ee ka hadlayaan waxa kamid ah waxay leeyihiin Eritrea waxay ku samaynaysaa wax la yiraahdo undirected destabilization nacam inay Ethiopia khalkhaliso oo Ethiopia faraha ka baxdo oo sidii waagi hore gaashaan burka ay u samaysanayeen qoladan Eritreanku
iyo TPLF-tu ay soo raacaan waa sida maad aragtay laba reerood oo sida imka Soomaalida oo kale una maad aragtay imka waxa lagu oranayaa Soomaalida Djibouti oo kale de waa Ciise Soomaalida xaggan waa caynkaasi waa saasun bay isku yihiin iyagii Eritreankii iyo Tigray kolka waagii hore dargiga intay gaashaanbuur samaysteen ayay afgambiyeen oo way ka adkaadeen Maraykankuna green light buu siiyey kolka taasaa u dhicin buu Getachew Radana uu kasii hortegayaa ta kale wuxuu yidhi proxy group bay abuureen imka matalan sida Simdo wax la yidhaahdo Simdo waxay ka dhigan tahay alliance bay samaysteen kolka even qolooyinka aniga maalinta hore ka hadlaynay kuwan xaggan ugaadeenkoo kale ugaadi National Liberation Front kale in Gambeelaha qolooyinkana way ku jiraan bay leeyihiin laakiin guud ahaan kolka la eego arrintaasaa sasisay maad aragtay oo ninkan magaranaysa Isaiaskuna weligii ma rabo Ethiopia inay degto even Getachew Rada wuxuu yidhi Ethiopia inuu maamulo rabo even waa Maraykanku waxay ku yidhaaheen Ethiopia haddaad ka dhigtiin Isaias madaxweyne haddaa looga dhigo arrintu way hagaagi lahayd inagamaba 1993 mayba guusteen maad aragtay kolka psychology caynkaasaa qolada northka ku jira kolka wixii question waxaa soo baxay uun wixii la qarqarinaya maad aragtay kolkastiba la odhanaya nacam qoladana maamulaysa qoladana sidana waxaa la arkay uun nation statekii dowladdii Ethiopia ee ku dhisnayd Christianityga maad aragtay imika say ku dhici karaysaa oromada kaloo dhan xabad dagaalamaysa ma jirto 10% Christianka dagaalamaya oo oolaaga lagu sheegay waa iyaga Oromo Liberation Front waa iyaga TDF ka waa garanaysaa Tigreega weeyaan qoladan kale even maanta kolkay Eritreanku hadlayaan boqolkiiba 80 saan ku odhanayay waxa meesha dadkii laga qaaday xogga laga qaaday waa Eritrea Liberation Front ninkan Abiina waxaasuu doonayaa inuu mariyo xaggan kalena dad buu ka waayay maad aragtay taageera adoo haddaan usoo noqdo qodobka ugu dambeeye ee ay ka hadleen waxa weeyaan taariikhaan saanan ku dhun bay ka hadleen demografiga dadkii kale oo badanaya ay ka hadleen Ethiopia maanta waxa la yidhaha 30 jir iyo wixii ka hoose boqolkiiba 70 weeyaan dhaqaalihii dee uu xumaaday inkastoo maad aragtay inkastoo maalmihii dhaweydee ma aragtay doorashadu dhacday jaraa'idada adduunkoo dhan kolkaad key pointiga eegtid waxay odhanayaan nacam Ethiopia waqtigan iminka dagaalaa ka socda laakiin bay yidhaheen however waxay yidhaaheen Ethiopia iyadoo sidaa tahay dhaqaalaha Ethiopia boqolkiiba 10 buu sare u waa tahay Ismaaciil dhinaca kale mucaaridka Soomaaliya ee dhinacan iyo Ethiopia isaga laftigiisu dhaqaaqay ayuu ka wadaa magaalada London dhaqaaqadaas London ka socday maxay ahaayeen iyagu waxa weeyaan walaal laba group baa saddex group baa isku tagay maad aragtay qolo waa Uganda National Liberation Front qolada kalena waxaa la yidhaha Somali Cause oo waxa weeyaan waa qolooyinkan bartiraha ku yaroo dhalinyaro nin Axmed Baaji la yidhaha baa maamula kan kalena maada maamulo oo garabkan kalena waa taqaanaa election ka qayb galay waxaa maamula ninkii la odhanayay Cabdikariim kii la xiri jiray maad aragtay yaa maamula oo de isagoo electionkii buu ka qayb galay iyo qolo kaloo saardan la yidhaaho iyaguna ka soo jeeda xaggan city weeyaan saddexdaasa isku biiray laakiin kolkii la eegay maad aragtay iyagii baaba kolka meelahan karamardhiya laga wareysanayay isku markhaat furay eeg 32 ilaa 37 qabiilo kala gedisan baa ku nool meesha waa sida iminka Mustafiya waxay yidhaaheen meeshii de waa lagu shubtay ama way ku shubteen baa lama odhane waxay yidhaaheen ugaadeenka waxaa la siiyey 123 qoladan kale ma garanaysaa waxay yidhaaheen ciisaha waxaa la siiyey 20 jadwaaqa waxaa la siiyey 20 isaaqa waxaa la siiyey 13 igada bursiga 6 gaadsan 2 taq ugu qosol badneed waxa weeyaan waa gurguraha oo majority ku adirdabe oo maanta dee laba aflayaala ma aragtay oo meelaha ugu fiican Ethiopia ee Soomaalidu aan sheegano sida imika matalan Erero kale meesha la yidhaahdo Hurso kale meesha la yidhaahdo meeshu Hayle Selassie uu agriculture-ka ugu weyn ka helayay nimankii ayaa lagu leeyahay 2 qof baa la siiyey kolka dadku way la yaabeen maad kolka gudaha kolkaad eegtid xaggan kililka waxa ka socda iyo waxa dibaddaba waxaad moodaa iska daa waxay ku odhanayaan waxaan la dagaalamaynaa gumaystayaashii waxaan la dagaalamaynaa Ethiopian ku xoreynayna war dadka kula nool horta ma qayb gelisay weyn ma did you acknowledge that oo ma la fadhiisatay ta kale maad aragtay adigiyo dadkaagiiba kasbanayn iminka waa sida Uganda National Liberation Front nin kaliyaatoo maanta dagaalamaya meesha kuma leh runta haddaa laga hadlo dibadda iska joogaan 15 ugu sarreeya meesha maamulaya 14 ninka Maade Maxamed wuxuu ku dhashay you can check it verify xamar buu ku dhashay kiiba ku odhanaya maanta maad aragtay annaka
نعم simply because he's ogaden clan أنا maamulaya meesha ma dhici karaysa de waxaas waa wixii maanta eeg Soomaaliya field state-ka maanta waxa gaarsiisay waa clan ideology-na waxa weeyaan adduunka aniga ku odhan jiray Cabdi Shakuur 200 sannadood ka horeysa ayay Britishka Jarmalka nimankan ka qaadana de waxan dawladda lagu leeyahay ba maaragtay ay ka baxeen ay ku leeyihiin Franciscans waxa odhan jireen on va former un homme nouveau qof cusub baan dhisaynaa bay odhan jireen qof cusub si nacam laga baxo waxaan ku dhisan dhiig sayimka waxa Somaliland oo kale maanta la hadayba maaragtay ay ku odhanayaan okay waxaad odhanaysaa matalan nin khatara jiray imika ka yare raago Omar oo kale ayaa de imika laga yaabaa inuu yimaado waxay ku odhanayaan waa reer Kema instead of seeing ninkani credential ma u leeyahay waxan oo academickiisu waa maxay oo experiencekiisu inta eegi lahayn aduu inaan guudaan kugu daaline waxa weeyaan nimankan iska qaylinaya ta kalena abi wuxuu sameeyay aan kuu soo koobay dhaqaalahan $7 bilyan buu gashay kililka Soomaalida $7 bilyan 4 bilyan oo fertilizer-ka iyo xagga gaaska qoladan Tigreeg iyo Amxaarkay garab fadhiyaan ilay waxba la qabsanaynaayoo waxbaan abi man afgambeenna maxay soo wadaan waa inay isweydiiyaan programkoogu waa Ethiopia cankay rabaan waxay rabaan de Ethiopiyadii madartay 27 sannadood ay Tigreegu maamuli jireen ee 5 airport bay dhistaan 5 armiga Ethiopia 60 bay hayeen 58 of them waxay hayeen Tigray amxaarada iyaga iska badaa sheekadooda madartay waxay kolkay dirdhaba Cabdi Shakuur oo ku soo gaabinay kolkay noo yimaadii waxay noo keeni jireen kwararka Mareykanka kolkaasaan odhan jirnay waa lagu soo urureeyo amxaar baa tegaya meesha iyaga 10 grade-ka loo digi jiray America nimankiiba maanta eeg ayaa lagu leeyahay waan garab fadhiisanaynaa iyo kuleyn ogada national liberation ma garanayaan nimankan they don't even know them to be honest with you wadankii kumay dhalan afkoogii ma garanayaan history-gay wataan ma garanayaan ee waa nacam waa la iska hadlown awgeed oo de nacam siyaasad baan ku jirnaa ween garanaysa adeega rale xakameyn onada ay si cad uga hortimaado dabaaldega 26 Juun iyo mowqifka Soomaalida waxay ka dhigan tahay sheegashada ah in Puntland ay Ethiopia u gacan gelisay xubno ONLF waxayna fahmeen ONLF-tu geopolitics geeska Afrika ka socda imanka Abu Dhabi iyo maxaan jeedaa in Jubaland in Puntland iyo Somaliland gaashaanbuurta waxay la leeyihiin imka aniga kula shirki weynaa ka socday ee arrinta kooridoorka lagu dhisay waxay la leeyihiin Abu Dhabi iyagoo iyay dadkii geynayaan xagga nacam Eritrea inay geeyaan bay garanaysaa ta kale maad aragtay waxa ku tusinaysaa matalan eg Somaliland kolkay ka soo horjeesanayaan waa istirnacay bunde wax kale ma waa sidii waagii ka yare la doortay kan yare imika prime ministerka Soomaaliya kolkii la doortay kulligood way iska xaadiriyeen meesha wal fadhi ya waxyaalaha ugu qosol badan waa imika nimana waxaa jira inaan Zakaria la yiraahdo saardada maamula ayaa maalin la wareysanay kolkaas lagu yidhi adu xageed ku barbarto kolkaas aanu reeder dhabaan hay laakiin Djibouti na waan hay kolkaasaan maalin la kaftamay oo ku yidhi bal ka waran anna haddaan sheegto Somaliland ma sheegan kartaa adu dirdhabaa tahay dirdhab kolka aqliga caynkaas ma aragtay waa nimankanna taasunba haysata dhibaatada unba haysata dhibaatadiina meel hoosa laga arkayaa xaggana cadow badan baa ku fadhiya niman 3 group baa ku dagaalamaya oo aad u waaweyn oo nacamtay siyaasadii ku soo jiray kolka that is the biggest problem kolka sida awgeed bay waxay kolkay ka dhaxeer arkaanba ma aragtay wax yar oo imika maanta waxay ku leeyahay June 26 ila 60kii baa la xusay Soomaaliya oo dhan baa midnimada laga hadlay way isku tuurayaan ma kama fiirsanayaan iyaga maxaa ugu jira Somaliland ma yaa qoray Somaliland inay xog ku noqoto Somaliland 1964kii 1977kii intaasoo dhan 90% is well written archive-yada ma garanaysa meel kasta ka helaysa dhibaatada ugu weyn Somaliland ku dhacay dagaaladii lagu xoreynay laakiin Somaliland maxay ka macaashtay waxay ka macaashtay diyaarada ka kaca taa kaaga sheekayn maayo diyaarada ka kaca meesha ma aragtay thanks to Edna Wigan si fiican bay iyo qeexday barnaamijyadaas oo kale waa in adduunka la tusama aragtay taasayna fahamsanayn kolka Djibouti-na way congratulation bay lahayn ma aragtay oo waxay lahayn nacamde waxaad way fiican tahay laakiin Somaliland-na waxay kale waa gooni goosato ma aragtay kolka waa waxyaabaha poor politics iyo poor mentality wala loo yahay dekada berbera Ismaaciilow haddii Ethiopia ay dib u ballaarinayso isticmaalka dekada berbera sida ay tani u bedeli kartaa istiraatiijiyadda dhaqaale iyo xiriirka gobolka
boqolkiiba 90 way beddelaysaa walaal oo iminka waxay ku beddelaysaana waxa weeyaan eeg kolka xaggan lagu xidho iminka eeg Jabuuti waxyaaba ay kula dagaalamayso Somaliland wax kale maaha waxay ku leeyihin waxaa ka soo baxaya Jabuuti waxaan imanaynaa xaggan waxaan Seylac ilaa waxaan galaynaa maad aragtay jigjiga aqli gal maaha waxaas garanaysa realitygii ay ka guudboodayaan kol kasti oo dee sidii aad ula socotana ay odhanayeen xalay baan seexan waayey kolkaan maqlay Somaliland baa la aqoonsaday MOU-gii maad aragtay waxaas waa sheeko gaagaaban waxa la isku hayaa waa poorka Jabuuti iyo poorka Soomaaliya labaduba intay fadhiistaan 132 milyan weeyaan Ethiopian way u baahan yihiin waxa weeyaan dad istaraatiijiye garanaya oo u qeexaya oo si fiican Ethiopian ula shaqaysanaya oo economic integration si loo sameeyo baa loo baahan yahay kolka boqolkiiba boqol railway bay dhisayaan garanaysa xaggan corridor waani kolkii dhaweyd ku lahaa waxaa ku dagaalamaya maanta nin multi-billionaire oo ka soo jeeda Israel iyo waxaa ku dagaalamaya Abu Dhabi shirka imka dhaatii dhaweyd qodobada ugu waaweyn ka soo baxo laakiin mandaqadoo dhan way completely way beddelaysaa Maacilow dhinaca kale warar ayaa sheegay in Ethiopia ay qarka u saaran tahay dagaal maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee hurin kara ama colaadaasi looga baaqsan karo Ethiopia kolkii hore dagaalba may rabin maad aragtay laakiin waxa dhibaatada u geystay waxa weeyaan waa qoladan kuu sheegaya ee siiyey Ethiopia inay maamulaan kow qoladan Eritreanka aniga kale Isaias wuxuu doonaya Ethiopia inuu maamulo waagii mar la siyaa la shaqaysan jireen waxay sameeyeen waxa la yaab kale Jarmalkay waa expose bay sameeyeen businessa kolkaasay lahaayeen bunkanan iibinayna hadda waa bunka Ethiopia kolka way siiyeen maad aragtay meeshii qoladan kale amxaaraduna waxay ku odhanayaan Ethiopia anna kala aanteeda Ethiopia ma jirto qoladan Tigreeguna waa saas leey kolka abina maad aragtay uu fahmay political equationka uu fahmay wuxuu rabaa imka dhaatii dhaweyd uu ka wada cadhaysiiyey wuxuu geeyey baarlamaagu geeyey ma garanaysaa in arrimaha diinta muslimka oo dhan ee lagu maamulo iyuu yidhi imka digada waan ka doodaynaa taasi they couldn't believe it maad aragtay xashka wuxuu sameeyey intaasoo qof buu ma garanaysaa bilaash inay ku tagaan uu sameeyey kolka waxay u arkaanba kolkol waxay ku odhanayaan uuna khaldayaa maahane ninkani waa nin muslimay ku odhanaya waa sida Iyaasu oo kale maad aragtay waqtigii dee Haile Selassie ay Iyaasu loo ay u arkeen qof muslim ay dileen oo kale ninkan waxay xabashadeen hulatanya Isaias waa kii labaad bay odhanayaan adigu guud ahaan kolka la eego waan ku celcelinayaa un Ethiopia maad aragtay nation state-ka beenbeenta ku dhisan ee westernaguna gacmaha dadka u hayeen Britishka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ma garanaysaa Faransiiska ka mid ahaa Maraykanka ka mid ahaa wixii oo dhan ayaa maanta ma garanaysaa shicibkii baa batay dhaqaalihii baa yaraaday kolkaa dee dadkuna way soo jeedaan oramaduna imika way kacday Eritrea iyo dhinaca midowga Yurub baaqa midowga Yurub ee ku saabsan baaritaanka xadgudubyadii dagaalka ma kordhin karaan cadaadiska caalamiga ah ee dalka Eritrea aad iyo aad waxba waniga kale imika qoladan maarka TPLF-ta Maraykanku waxay ku soo rogeen visa ku soo rogeen imika restricted visa nimanka elite nimanka maamulo dhan ee meesha ma gali karaan imika saas si leeg baa lagu sameyn doonaa qoladan imika petition bay sameynayeen maanta waxaan arkayay in qoladan Eritreanku ay kula dagaalamayaan because Getachew Reda maalintii wuxuu yidhi war 1.8 milyan ba maa shicib way baabeen kolkii waagii hore qaxootiga ugu badan adduunka waxay ahaayeen Syria yaa ka labaad ahaa waxa ahaa Isaias kolka CNN tiya qolooyinka wareysanayaan ku yidhaaheen goormeed election qabanaysaa wuxuu odhanayay maxaa ka hadlaysaa election waa maxay kolka way arkayaan wixii ma aragtay imika arrinta ugu weyn waxa weeyaan Maraykankii yaa deenacam soo socda in Abi baa kolka hore ay ka rooswaasnaayeen maaragtay oo dee dhankiisa inuu kambigiisa u soo jiidaan imika way soo jiideen waxay ku yidhaaheen annaka wax kasta kula qabanayna waxaad moodaa ninkan Isaias sida imika Ismaaciil Margeelo kale waayadan isolationka ku dhaco kale iyo Xasan Sheekh ayaa kana lagu rid doonaa Ismaaciilow haddaynu gabagabayno dhinaca Ethiopia mustaqbalka Ethiopia marka la isku geeyo doorashooyinka khilaafka gudaha Tigreega Oromada onadafta iyo loolanka geeska Afrika Ethiopia maanta ma u dhowdahay xasilooni mise qallaasa cusub anigu say la tahay Ethiopia maanta runta u dhowdahay walaal waxa weeyaan oneeg nation state kan beenbeenta lagu dhisay kolsaan ku lahaa ee for qarniya dadka xoog ku haystay iminka haddaad nin Soomaaliya tahay iminka Abi waa ninka ugu horreeya sameeyey vice president Soomaaliya ninkii doortay weeyaan matalan Somali region waxaa maamulayay niman Tigray maamulayay nin la yidhaha Quarter oo iminka
Thank you.